هذيك في قتلان وليبا كما مقنا هل سؤال كويدين واحد بيسو هل أرينا رواينا كويدين waxaa tiri laakiin Somaliland arabeen hore hadday haysato dukumeenti yaqaano iyo reer qaatumo waqooyi baa la dhigi jiray calan bay noo keeneen sharaf bayna leeyihiin Somaliland iyo reer dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga la isku oran jiray laakiin Puntland gooniga u baxay iyo cirkan gal hadaa tiraahdo Puntland qafiyada guryaha kale maxay tahay Puntland Somaliland sharaf bay leedahay iska daa Somaliland leedahay sharaf kuma guran مالها ودي بولان تقفينا بقولي إياه كافر بولان ما كفسن قبليه أقرضيه الصوماليين هذا أنا أصلا قرني منذ كنت فاعل فيري هرت وحنا وكلينا دي يقول يدبا أنا بقول إلى أكتر صور حسن شيخ محمد واحد هرت وكذا واحد ربع إنا كتوابته waxay ku tiri war umada been yaa laga dhaadhicin war umada yaan been loo sheegin war ilaahay inna lahu la yastahi min haq war umadi waa kala tagtay umadi dalkii ay lahayd inta la isku soo celiyay miyaa lagu heshiisiyay war meeshan diyaas barada UK baa leeyahay wadartaysa ragga wixii ka taagnaa wadarkaysa laakiin meesha laftirkeeda adiga gabadha aad ku meeshan jaaliyada gabadhan reer Puntland in la soo fariisto ana qaran Soomaaliyeed matalaya yaa aaba qalad ugu ahayd malaka iyada wali waxa leedahay matalaysa xagee ka dhisay ay wacda ma ahayn maamul goboleedahay hadii Puntland maamul goboleed tahay muqdisho waa maamul goboleed Soomaaliya waa maamul goboleed shabeellooyinku waa maamul goboleed horta Soomaaliya hadii qarankii qabiil xambaarsado way iska tagaysaa waa tahay arinta waxaan su'aal kale midaan haweenka qaranka iyo u soo noqonaynaa waxaad tiri hal su'aal baan ku weydiinaya waxaad tiri wadankan waxba lagama waa usoo noqonayna wadankan waxaa leeyahay ingiriiska lagama dhigi karo ururo laguma dhawaaqi karo laakiin waxaa jira jaaliyada Soomaalida jirta oo hadda sidaad og tahay la isku haysto ilaa laba group u qaybsan wax badan baa jira jaaliyada Soomaaliya halkan ka dhisan anagu nin baa la doortay anigu waa ka soo qayb galay doorashadii ninka waxa leeyahay Maxamed Ismaaciil Atoore nin baa garab istaagay in adeerkiisa meel walba inta la istaago yiri anagu waxaan ahay gudoomiyaha diasporada UK Atoore ma sheegan qaran diasporada wuxuu yiri gudoomiyaha diasporada UK baa loo doortay Soomaaliya dhan baa isaga timi inta UK ku nool adigu waa ka qayb gashay anigu waa ka qayb galay waxa lagu dhigay Soomaalina uga qayb gashay Soomaalina uga qayb galay waxa marka socoto ma taqaana aniga ideh qaran ba meel u ka jira ayan jirin baa socda meeshan diyaas baraynu nahay inagu adigu ma qaran idaacada qaranka ee Soomaaliya ma meeshan qaran Soomaaliyeed oo UK ka dhisan ma jiro Somaliland waa maqantahay state bay u istaagtay Puntland waa maqan tahay Jubbaland waa maqan tahay Galmudug waa maqan tahay xubin iyo xeeb waa maqan tahay bay iyo bakool lama hayo gabar baa halkan ka soo booday gudoomiyaha qaranka Soomaaliyeed baana gudoomiyaha qaranka Soomaaliyeed waxa laga yaabaa Soomaaliyeed laakiin hadinka fi Puntland waliba kuma maqna
يا بطلان ربا على إلهي أطال أدوك أنا أصري رالي هذا ضد بعض السلسال واحد شنك الصوماليات بان وطي شنك الصوماليات بطلان يا حسن شيء سكاد شيء أبو الذي نعبه حبلت حسن شيء مدحوينا الصومالية موضوع يا وصل نقولنا تري سنة هالرواية بابا بطلان قد كأي كبح هذا موضوع يا وصل نقولنا وحي ركاد xogaa aan kala xishoon dad badan baana daawanay waa dhamaatay mawduuciga ku soo noqonayna hadda waxaan ku yiri mawduuciga ku soo mawduuciga بديني لا يبريسا بدلان قبيلان هيستايتري قبيلان هيستايتري لكن تاني وبيل ير ماشي لكن ادوق بدلان ما الا قاطنا ترادين بدلان وين ديدن قاطمه كاسو كانوا ما عرفتو هاسكو قسبنا وقرن صوماليا وقرن صوماليا اسر مجرو قرن صوماليا قاتو ما نولاتو وكيل هنولاتو قبيل أهم مرة كون راعي قاتمو قدر حيسيسي واسكو سو نقولنا